goob ka mid ah goobaha buurasha yaryar ee magaalada Hargeysa ayaa maanta ku shufeelay kadib markii uu dab qabsaday goobtaas oo ku taala xabaalaha dhinaca midig ka xiga wadada Togdheer iyadoo aanay wax dadihii ku dhiman balse ilaa 15 guri tira gaaraysa ayaa ku baaba'ay sida kooban muuqata muuqaalkan dadweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa ciidamada dabdamiska iyo kuwa bareefadka ah ee ku bidida Harshiid ayaa u gurmaday iyagoo xoog ku isticmaalay ku baqtiyay sida halka ku muuqata waxa taagan booyada iyagoo ay ka dhaqaaqeen dabdamisyadii oksijiinka wax boolisiina muhiim ah dhammaan xagga calaamada dadka taxaabaya wareedayna xarbi annakina ma dadka warsaaseen sabia والله